السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها كحرن برتيد يوتيوب ولكن أبو كرعوالة عافيمات عبادة صوبا أيان دي رجينيا كسول هذا مركلة الشاكدي ها قرني جميع وبحنا وحن مريني انتي نلا سعتي lawyer-kii u doodayay wiilka Soomaaliga ahaa oo totally destroy gareeyay ama burburiyay kiiskii uu ku doodayay tiimka u doodayay gabadha yarta. Remember, lawyer-ka gabadha u doodayay wuxuu ku doodayay wiilkaani midi buu gatay, mididaas oo kale baana lagu dilay. marka wuxuu leeyahay wiilkaan oo 5 galabnimo midi gatay, gabadhaan oo 8 fiidnimo la gatay, mididii ha gatay meel u dhigay lama yaqaan, gurigiisii ma geyn, jeebkiisa kuma jirin. mid kale been buu ka sheegay oo wuxuu yiri midi ma gadan. mid kale dhakhtar baa wuxuu yiri midida ku dhacday waa mididii oo kale. kiiska gabadha lawyer-ku u doodayay rasaasta ugu waaweyn ama evidence-ga ugu waaweyn u dhahay ninkan lagu xukumay intaas ay ahayd. intii sidii aad qaybtii u dambeysay ku daawateen, lawyer-kagayagii baa ka daba tagay markaasuu digada ka dhigay. wuxuuna digada uga dhigay horta kow midi qofku wuu gadan karaa, midi buu gatay macnaheedu maaha inuu dilay. wax caddayn ah oo ay maxkamadda keeneenna waxay ahayd ninkaas dhakhtarka oo yiri habeenkaas night shiftigan joogay, gabadha jirkeeda ana baaray, mididu waa mididii oo kale. ninkiina tii ku dhacday qaybtii hore aad weydii. marka waxa loo gudbay maxkamadda qaybteeda kale. maalinkaas halkaas ku soo dhamaatay, lawyer-kaygaas oo gabagabay. labada lawyer-ba waxa la yiri ma ku daraysaan wax kale, wax kale oo evidence ah oo aad disclose garan ama wax kale waa layga sheegtay runtii. waxa la ka daa Ingiriiska, kelmadaha Ingiriiska aad adeegsanaysid. inkastoo aan jecelahay daawadayaasha kuwa qurbaha ku dhashaa ku jira oo Ingiriiska oo kale, waxaan u naqaanaa anagu isku dhex karis xogaa Ingiriis in loogu qaso xabad xabad si aan iyaga laftigooda ay bulshada uga naga dhumin. marka raalli aad haddaan xabad xabad iga fakato. marka haddii alla ku idmay waxa la yiri wax kale oo aad ku daraysaan miyay jirtaa? maya. war adigu lawyer wax kale oo ku daraysay miyay jirtaa? maya. aan isugu soo noqonnaa la yiri final remarks waxa la yiraahdo. final ama conclusion dooda waa maalinka ugu dambaysa. maalinkaasi lawyer intuu ka codkarsan yahay, intuu ka experience badan yahay, intuu ka yahay powerful speaker, intuu ka yahay nin dhiiran, intuu ka yahay sida uu sheekada u dhiso buu ka khatarsan yahay. Soomaalidu waxay dhahdaa nin ka hadal badan geelaagana u dhacaa miyay wax saas oo kala. maalinkaas ugu dambaysa ee maxkamadda hadal sii jeedinta ugu dambaysa waxay sam abgaraynaysaa kiiskiisii oo dhan buu inta dhiso buu leeyahay juuriyay halkaas talada farahiinay ku jirtaa. farmad bilow tu ka soo sheegay wuxuu dhacay sida wuxuu dhacay sababtaas iyo sababtaas markaas inta soo aruuriyo juuriga leeyahay wakaas arintu farahiinay ku jirtaa. life ku xukuma ninkaas. lawyer-ka kale oo wiilku u doodanayna sidoo kale laga rabaa asna intuu kiiskiisa soo dhiso. waliba waxa la yiraahdaa maxkamadaha waxa la yiraahdaa waxay jecel yihiin final remarks ka qofka dambeeya ya hatta waxa loo tuura xarash iyo madax labadooda mid ka hormaray closing remarks, because waxa la yiraahdaa qalbiga qofka erayada ugu dambeeya oo u maqlo saameyn gooniyo ku leeyihiin. maanta oo dhan hadii lagu lahaa ninkan waa dambiile oo lawyer-ka ka dambeeya inta yimaado ku tuso war ninkan waa miskiin, war ninkan waa saan, war sidaana dhici karta, warni wax ku degdegin. back of your maskaxdaada gadaasheeda waxa laga yaabaa kelmadahaas dambe inay moor saameyn ku yeeshaan. marka waxa la gaaray maxkamadda gabagabadeedii.
waxaan sugaynaa u malaynayaa 4-6 weeks waana loo yeeray magaaladu marka tension baa ka socda maxkamadda horteeda waxaa taagan wax allaale wuxuu journalista ah banaanka maxkamadda waxaa jooga oo halkaas boolis ku celinaya skinhead laba niman la dhaho calamada wato suomalaisille mene pois bokkolaista perkele saatana menkää kotiin ku hay naga saara waxaan qaxootigayo cabsi baa ka jirta dhowr qof oo dhalinyaraa oo magaalada lagu banjigareeyey oo lagula dagaalay way jirto waagaas waa aad baa loo taxadaraya runtii mas-uuliyiinta dowladduna waxay ku hayeen waa inaan ka taxadarnaa runtii qof baa wax geystay Soomaaliya community oo dhan wax ma geysan marka very dangerous times bay ahayd xaaladdu iska kacsan tahay not only magaalada Tampere saameyntu waxay gaartay xataa Helsinki iyo magaalooyinka kale oo dadkani waa dad aad isugu xiran shaqadana aad bay u ruuxday qulubta finishka dadka finishka ah iyo dadkii annaga laftigeeyga cid walba way ka naxday gabar yar oo saas loo dilay marka waxaa bilaabmay maalinkii baa la isugu yimi I remember waan xasuustaa markaan galaynay geesaha waxaa naga socday ninka waxaa loo geliyey jaakad baa madaxa wejigiisu qarsanaya isagoo saas laba askari baa geesaha ka wada bash aniga iyo lawyerkuna waa daba socon maxkamadan saas ku galay waxaa hor bilaabay ninkii odagaha oo u doodayay prosecutor teamka dacwada soo oogay oo leh gabadha u doodayay hadalkiisa wuxuu ku bilaabay ladies and gentlemen maanta waa maalin taariikhda finishku ay qori doonto wax badan sheekadaas qormi doontana sida aad maanta u dhigtaan bay noqon doontaa xilli waxaa jiri doonta aynaan waxaas waxba ka bedeli karin laakiin today si fiican ii dhegaysta waxaan rabaa waa tuma horta tuula ii kale gabar yar qurux badan blonde head according iskuulkeeda waxay ahayd gabar potential ah flower soo baxay according to her parents waxay ku tilmaameen gift from God hadiyad ilaahayna siiyey waxay ahayd gabar naxariis badan waxay ahayd gabar qosol qurxan waxay ahayd iskuulka waxay ahayd one of the marata bright carruurta ugu dalkeedii bay joogtay ciideedii bay joogtay long day bay iskuul soo dhiganaysay galabkii markay timid swimmingka aad hooyadeed iyo aabaheed fadhigay fariisanayeen maskaxdooda marna kuma soo dhicin wax u jira hal mayl waxaan dhammayn hal maylka wax hal kilomitir aan dhammayn oo ay dabaalo aaday baabahal jidka u geli doonaa maskaxdooda weligeed kumay dhicin any minute bay expect garanayeen inay albaab ka soo gasho ninka halkaa fadhiya muujeedaan buu 1990 buu wuxuu ka soo galay waddanka Ruushka passport ma wadan driving license ma wadan birth certificate ma wadan waxaan ku niri magacaa hebel baa la dhahaa okay Mr. Hebel ku soo dhawow Finland gurigan qaado caafimaadkana isbitaalkaas lacagtaan hado jaamacadaas gal luqadda baro welcome bulshadeena baan dhex gelin dejinay caruuraheena iyo xaafadaheena baan dhex dejinay no crime lagama baarin no fingerprint lagama qaadin no lama hubin and then wuxuu na tusay qofka uu really yahay meeshaan thank you iyo abaal iyo wanaag inuu noogu bedelo sugaynay gabar yar oo Finlandees ayuu farxumeeyay oo inta inkiray sida uu maanta u inkirsan yahay baa maxkamadda ku xukuntay lawyerkaygu waa soo boodaya marka objection nothing to do with this case maxaad isugu xiraysaa arrintaasi arrin bay ahayd waa dembigeeda waa dhammaaday tan ka hadal igala hadal
maya buu leeyahay kan kalena waan xasuusinayaa juuriga inuu hadda ka hor maxkamad been ka sheegay inuu hadda ka hor dembigan oo kala galay sustain balle ku soco waan idin xasuusinayaa sidaan oo kale u lahaa ma samayn DNA baa caddaysay inuu asagay sababto taariikhdiisa ayay ku jirtaa inuu below yahay inuu khaa'in yahay inuu wax walba dafiro ma aha markii ugu horreysay looyarkiisu wuxuu yiri ninkaani waa muslim waa nin wadaa ah waa nin kan ah waa nin gabadha uu caawinayay ilaahay baa faray waad ogeydeen buu yiri kitaabkan inta hor dhignay oo uu ku dhaartay buu been u sheegay wuxuu been u sheegay ilaahay wuxuu gaf ku sameeyey oo been u sheegay hortiina idinkoo taagan buu yiri kaarkaas ma gadan bindidaas ma gadan oo ku celiyey war ma iga hubtaa war joog war kadda war xasuuso ma gadan looyarkaygu waa soo bodaya objection gidi maxaa ugu celcelinaysaa mididan midi waa la gadan karaa midda kale adigu ii sheeg shoppingkii aad wiigii hore gadatay tell me meeqa markaad bahalkaaga soo cabaysatay meeqa xabbaa ku jirtay miyaad xasuusataa intaad yaanyo gadat intaad barbarooni intaad cheese gadat intaad rooti gadatay ma xasuusano ninkaan dukaan buu galay dhowr shay buu gatay mid wuu ilaawi karaa dembi ma aha mididaana kiiskaanba shaqo kuma laha sow wuu gatay crime ba maxaad ku haysaa midida dhakhtar baad la timid markaasuu yidhi sug it's not your turn aniga ha iga galgelin iga fariiso saa leeyahay waryaa ka fariiso maalinkaagaad leedahay ladies and gentlemen buu yidhi ninkaan characterkiisu waa ninkii u doodayey gabadha baa hadalka sii wata mudanayaal iyo marweye ninkaan dabeecaddiisa iyo duntiisa iyo wuxuu yahay waad aragteen buu yidhi waa beelow waa khaa'in waa tug waa laayar gabadhana asagaa dilay an isweydiiya wuxuu yidhi muslim baan ahay waan caawinayey waa kanba ilaahay baa ifaray dhabtaan saartay I help ilaahay ma oran ka carar dembi haddaada lahayn weligeed kama dhicin buu yidhi the crime of the century 1990yadii crimeka ugu weynaayo ka dhacay ahayd buu yidhi oo aerocopter iyo ay baa 3 hours cayrsanaysa buu yidhi ninkan 3 hours baa la chase garaynaya oo baraf ah haddaanu wax isku ogeyn muxuu intaa la cararay haddaanu wax isku ogeyn oo uusan waxba dhimin muu sugo hadduusan nin xun ahayn uusan cadow ahayn uusan dilaa ahayn gabar yar wuu yiri afkiisu yiri markaan arkay inay sii dhib muu caawiyo muu ambalaas waco muu ka kaco waa dhurwaa buu yiri waa dhurwaa mana dilin kaliya gabadha ma dilin ma ahayn dil intuu iska socdo isaga dil ugu talagal qorshaysan 5 o'clock midi u gatay halkaas u aaday la qabsaday helay anigoo dil kaliya ma ahayn buu yiri waxaan idinka codsanayaa inaad indhaha isku qabataan dhammaantiin juuriga idinka laftigiina indhaha isku qabta ma isku haysaan ma Soomaali waa indhaha isku qabanaysa wuxuu yiri juuriga waxaan idinka codsanayaa inaad indhaha isku qabataan say gidgood saas leeyahay siir waxaad qiyaastaan qalbigiina baan sawir idinka tusayaa qiyaasa gabadhaas swimming bay ka timid timaheedu waxay leeyihiin shax waa qabow she's excited favorite filmkeedii baa soo galay gurigeedii bay u socotaa hooyadeedii aabaheed bay arkaysaa joy bay ku nooshahay way faraxsan tahay tomorrow waa school hal mar babalaayo muska uga soo booday buu yiri kaasoo ku dhuftay torrey oo ku dhuftay 17 times she was dead by 6 markay ku dhacday inta kale enjoyment bay ka ahayd he was not killing her anymore he was enjoying 12 13 14 way sii leedahay wuxuu yiri waan arkay markay naftu ka baxaysay
of course waa nin yaqaan goorta ay naftu baxdo iyo shanqarteeda wuu yaqaan hore u arkay ma u jeedaan buu yiri gabadha yartaa ee meesha lugeynaysa last wordskeedu waa maxay help 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 can you hear her ma maqlaysaan ma u jeedaan barafka ah cilada ah ninka ka weyn ku kor fadhiyo help 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 saasay nafta uga baxaysaa cidda ay help ku leedahay waa idinka waa Finnish justice waa Finnish police waa Finnish maxkamad waa Finnish government waa Finnish people bay waxay ku leedahay ninkaas iga qabta ninkaas iga cisha ninkaas yuusan aniga idiliyay yuusan gabar kale ku samaynin today tuula waa naga hooseysaa laakiin waad maqlaysaan fariinta idinkaga tagtay help haddaad really dareer qaar baa marka laga sheekeynayo emotionka indhaha isku hayaan juuriga qaar baa elban ka dareeraysa very emotional noqday anigii xataa meesha fadhiyo reer galgacyada jiriracooda ilmahaas yarkaa yani gedigan human being baana ilmo yar oo cilla fadhiyo ninku kor fadhiyo midi la dhacay waa wax yani wax cabsi badan weeye kalmadaheeda u dambeeyay helbigaas maanta gacantiinay ku jirtaa wiil go-aanka markaad gaaraysaan just xasuusta kalmadihii ugu dambeeyay oo ay tuulo ku dhawaaqdo never ever peace of mind heli maysaan buu yiri ninkii dilay inta uu dariiqyada lugeynayo tuulo u hiliya gabdhaha yaryarka finishka oo dhurwaagaas dariiqyada Finland mar dambe yuusan dib u marin life u dira dalkiisa u dira tarxiila markuu dhamaysta na dhaafiya abaal wuxuu nooga dhigay ninkii intaan soo dhaweynay dalkeenna keenay guri siinay caafimaad siinay lacag benefit siinay tababar siinay jaamacad siinay cilmi siinay funny way waa si yaab badan buu yiri meeshaan mahadsan tahay ka sugeynay بعرورتي يدي عنايبي ما لا بكياب لكن وادو جيدان قوحة بحية وادو جيدان آبهو دي هويدد ويفديان مركا هويدد دي آبهد كوالا you can see what you do waxay ugu yeereen damaca ay u bixiyeen waa gift from God hadiyadii Ilaahay siiyay ninkaas ka qaaday buu yiri aan hubiya gacantiinay ku jirtaa never again inaysan cid kale ku dhicin wax reerkan masiibada reerkan ku dhacday waana mahadsantiin halkaas waxa ku dhamaaday qaybtii lawyer waxa haray lawyerkeegii haddii aad garanayso qof qaad cuna la tali page-kan waxaan ilaahay ku soo dhawaada asxaabta gaarsiiya real stories badan baan idin soo wadaa insha Allah bulshadeena waxa ku badan reaction iyo babay ana waxa idin la wadaagi doonaa runtii sheekooyin bulshada aan isleeyahay wax badan bay ka baran karaan saameeyna nagu leh marka channelkan noo balaariyo asxaabtana la wadaaga subscribe gareey idinkana si story idin soo gaarto haddaad garanaysa nin qaad cunana uga dig qaadku waa masiibo qaran oo lagu doorinayo maskaxda ninka dhalinyarada Soomaaliyeed lagu fariisinayo muruqiisa lagu guranayo maalkiisa reerkiisa iyo caruurtiisa lagu qadinayo marka ka digtoonaada leeyahay gabdhahan hadda waa balan in qaad cunaa guursanida waa inta isaga imaanayna qaybta kale ee channelka ku xirnaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.